وفرح سنة هي عاوة إنان كمدة هاي دتك كسو غيب قالي مناسبة دان أي تبارك أي شيء تي ود بالدقيسو أن كقولي ستة أي كقولي ستي إن هي شو شهادة ده ISO 9001 oo macnaha kadib markii lagu sameeyo qiimeyn ku saabsan waxa la yiraahdo quality management system la qaato waxa waaye waxaan islaayahay muddo soo socotay sanooyin soo socotay arrintaas inay markaa ay ku baaseen aad iyo aad ayay u tahay mataqaanaa wax aad loogu farxo waxaan leeyahay marka team Tabaarak hambalyo waa mudantihiin Tabaarak anaga ka Hormuud Salaam Foundation ahaan marar kala duwan ay nala shaqeeyeen waxaa ka mid ah dalka markuu ka dhacay koronaha sidaad ogtihiin waxaa la abuuray xarun call center la yiraahdo oo u suurgelinaysay dadka inay soo wactamaan oo dowladda Soomaaliya xaruntaas aan usoo garaynay softwarekaas systemkaas ayagaa sameeyey xaruntaas oo hadda u dalacday xarunta qaran arrimaha mataqaana xaalada degdega ah oo hoos imaata hay'adda Sodma oo ku shaqeysa nambarka gaaban ee 44449 ayagaa sameeyey oo gacanta ku haya midda kale waxay naga caawiyeen systemka ama nidaamka deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation oo ku shaqeeyo sidaad ogtihiin deeqda waxbarasho Hormuud Salaam Foundation marka la dalbanayo waxaa lagu dalbadaa si online ah applicationka qofka inuu dalbado inuu imtixaanka fariisto waxaan u sameynay portalkaas usbuuc ka hor aan sheegna saacadda uu furmaayo maalinta uu furmaayo application qofka marka inuu dalbado systemkan ayagaa sameeyey oo lambarka loogu talagalay markii uu gaaro asaas xiraya ani waxaan ka qaban kara male si ay u noqoto system mataqaanaa cadaalad ah sidoo kale sanadka hadda ahay waxaan kusoo kordhinay systemka ardayda markay imtixaanka galaan oo natiijada lasoo dejiyo arday kasta jaarguryada wuxuu u kala doonaa sida uu kala leeyahay in uu systemku asaga u identify gareeyo arday kasta kii oo macnaha jooskiisa koowaad haddii uu ka buuxsamo kiisa labaad u siina ama kiisa saddexaad taasoo anaga naga xalisay mushkilo badan oo ardayda markii ay koorsooyinka ay doortaan waxaa laga yaabaa ardayda nambarka aan qaadanayn wuu xadidan yahay marka inay hal kuligood doortaan ama tiyaa suuragal ma marka hadda systemkaas oo sameynayo mataqaana qof kasta dalabkiisa inuu u allocate gareeyo ayaga ayaa sameeyey sidoo kale waxaan kala shaqeynay mashruuca shaqo abuurka ee dhalinyarada ku shaqeeyo deliveryga dadka alaabta u geeya anagoo maalgelinay waa tababarnay ayagana shaqaday siiyeen dhalinyaradaas maanta average qofka celcelis bishii waxay sameeyaan $700 dufcad labaad hadda ayada process ku jirta dhalinyaradaas lacagtii aan ku maalgelinay mootooyinka ugu celinay sida ay u dhan tahay dib u soo celiyeen dib u bixiyaan way shaqaystaan dufcadii labaad hadda ku maalgelinay hadda waxaan ka wada hadlaynay ka shaqaynaynay dadka farsamayaqaanada ah oo farsamada noocyadeeda kala duwan ku shaqeeya in loo sameeyo app adiga marka maanta haddaa u baahan tahay koronto yaqaan haddaa u baahan tahay qof tubada kuu sameeya haddaa u baahan tahay wax kuu sameeya kuukarka xaggee ka raadinay marka dadka inaan anaga marka waa maalgelinaynaa Hormuud Salaam Foundation ahaan ayagana waxay sameynayaan appki hadda wuxuu ku jiraa tijaabo taasna ayadana waxay xalin doontaa problem oo kale horey waxay usoo xaliyeen ogtihiin magaaladan arrinta ku saabsan inaad taxi dalbadid ama dalbashada oo taxiga iyo ilaa e-commerce barnaamijkan la yiraahdo e-muraabaxa
oo online aad ku qaadanaysid muraabaxada marka runtii way dadaal badan ay sameeyaan sidoo kale barnaamijkan la yiraahdo taxiga afaras ee ka shaqeeya wadamada dariska Kenya haddaad tagtay waa aragteen Ethiopia Uganda I think hadda ilaa Tanzania sii mara marka runtii dhallinyaradeenna wax ku baratay dalka gudihiisa way aad u dadaaleen marka sida uu professorka sheegay marka aad muhiim u tahay marka in la dhiirigeliyo annaga waxaan focus ka saarnaa Hormuud Salaam Foundation ahaan ujeedada foundationka Salaam Bank iyo Hormuud Telecom ay u abuureen waxay ahayd in ay ka shaqeyso hawlaha horumarinta iyo gargaarka marka qaar dadka waxaa laga yaabaa inay dhahaan hay'adda gargaarka bas ee Hormuud iyo Salaam laakiin anaga waxaan nahay wax la yiraahdo corporate social responsibility marka ujeedada ugu weyn waa in aan ka shaqeyno horumar shaqo in la abuuro dadka in la tababaro xirfad inay yeeshaan sidaas waxay keenaysaa marka in laga hortago emergency-ga laakiin dalkeena xaalado adag asaga jira marka aadan marka waxaan rabnaa in aan juhdiga isugu geyno in oo dhalinyarada loo abuuro fursad laakiin waxaa muhiim ah ayadana dhalinyaradana fursadka inay ka faa'iideystaan shaqadu shaqo waaye waxaan ognahay waxaa kaloo jira barnaamij kaloo la yiraahdo hadda ay ku jira presentationka bile oo ardayda jaamacadaha ka qalin jebinaya ee ICT-ga bartay lagu sameynayo wax la yiraahdo aqoontooda kor loogu sii qaadayo si ay hadhow marketka shaqo uga heli karaan marka ardaydan waxaa la rabaa dhalinyarada shaqo waaye shaqo waxaa la rabaa midda aad ka shaqeyn kartid oo heli kartid inaad ka shaqeysid midda aad jeceshahay waa wax kale haddaana jirin maxaa sameyni ma fadhiisani marka waxaan leeyahay marka hambalyo tabaarak runtii aad ay u dadaaleen way dadaalayaan sidoo kale waxaan rajeynaa ka wada hadlaynay in la abuuro mataqaanaa academy oo manax ballaaran oo tababar iyo xirfad kordhin ku saabsan tiknoolajiyada oo ballaaran qaban karta